waay bismillah alxamdulilah weli waxaynu ku jirnaa casharkii toddobaad marka qaybtan waxay noqonaysaa qaybteenii labaad insha allah qaybtan waxaynu ka shaqaynaynaa examples tusaalaha koobaad an object moving with simple harmonic motion goes through two complete cycles in 1 second. Calculate a period, b frequency, c angular frequency. marka saddexdan su'aalood ayaynu insha allah ka shaqaynaynaa walaxdan waxay ku socotaa simple harmonic motion dabeedna waxay samaysay laba oscillation two complete cycles laba cycle ama laba oscillation muddo hal second ah marka waxaynu haysanaa u fiirso waxaynu haysanaa number of cycles ama number of oscillations oo laba ah waxaynu haysanaa total time oo 1 second ah marka waxaa laynaga doonayaa period iyo frequency iyo angular frequency haddaad su-aasha sidaa u eegto waxaa laga yaabaa inaad istiraado wuxuu numberba meesha kuma yaalo laakiin qoraalka laftiisaaba number ah marka lagu leeyahay two complete cycles waa number of oscillations bay noqonaysaa marka waxaynu haysanaa haddaynu ku horeyno number 1 waxaynu haysanaa number of cycleskeena ama number of oscillationka oo laba ah waa 2 in 1 second baa lagu yidhi halkan waxaan haysanaa total time oo hal second ah waxyaabaha laynaga doonayaa marka waa period iyo frequency iyo angular frequency waxa ah aan ku horeyno periodka period waxaynu ku heli jirnay total time divided by number of cycles total time-na waa hal second number of cycles keenuna waa laba marka isku qayb waa 1/2 oo u dhiganta 0.5 second su-aasha labaad waxaa laynaga rabaa frequency marka aynu ka shaqaynayno maxaynu ku heli jirnay labadan haddaad doonto qaacida isticmaal number of cycleska ha sarreeya total time-kuna uu horeeya haddaad doonto qaacida kale isticmaal ee odhanaysay frequency-ga waxaa lagu helaa 1 divided by period de waa kala rogaal waxa weeyaan periodkaaga oo rogtay unbaa lagu heli karayaa frequency-ga laftirkiisa marka haddaad tiraahdo periodku waxaan jeedaa frequency-gu waa 1 divided by period oo aad tiraahdo maadaama periodka 0.5 kusoo baxay 1 divided by 0.5 waxay noqonaysaa 10 divided by 5 saa waxay kugu soo bixi kartaa 2 hertz haddii aad qaacido dheeraad isticmaasho frequency-ga oo aad tiraahdo waa number of oscillation ama number of cycles divided by total time waa number of cycleskaagana aad tiraahdo waxa weeyaan number of cycleskaagu waa 2 total time-kaaguna waa 1 haddaad isku qaybiso waa 2 hertz laba goraalaba waa ku sax marka inagu waxaanu isticmaalnaa waxaan leenahay periodka waa 1 divided by frequency waa 1 divided by period markaasaa wuxuu inoogu soo baxayaa 1 divided by 0.5 oo ah 2 hertz su-aasha saddexaad ee siida waxaa laynaga doonayaa angular frequency haddaad xasuusto qaacidadiisa waa f equal angular frequency wuxuu inoo leegaa waa omega equal 2 by f marka omega ayaa angular frequency-gu inoo ahaa waa 2 by f marka f oo frequency-gii waan haysanaa 2 by-na dee waa 2 times by marka intaasun baynu isu dhufanaa 2 by iyo f tiyo 2ya halkaa waxaa inooga soo baxaya 4 by radians per second waa haddaad in terms of by kaga tagto waana ku dari kartaa by-da oo 3.14 watt ayaad su-aasha labaad waxayna leedahay graph the graph in the diagram shows graafka shaxanku wuxuu ina tusayaa displacement against time graph for an oscillating mass use the graph to determine the following marka graafkan waa displacement time graph graafkan markaa isticmaalanaa si aan uga jawaabno su-aalahan waxyaabaha aynu helayno waxaa ka mid ah amplitude-ka periodka frequency-ga iyo angular frequency aan ku horeyno amplitude-ku waa graafka markaad eegto cycle-kaagu displacement-ka uu sameeyey ama inta uu kor u kacay ee ugu badan maximum displacement oo hadda ku beegan 0.2 marka eeda waxaan leenahay amplitude-keenu waa 0.2 b-dana waxaa laynaga doonayaa periodna waa time-ka hal cycle lagu qaato
marka one cycle markaad leedahay waa halkaa waana 0.4 timekii waa horta axis-kaasaa timekii waa kan kugu qoran marka timeka lagu qaato hal cycle waa 0.4 second marka adigoon isdhibin waxaad leedahay periodkaagiina waa 0.4 second haddaad xisaabiso tiraahdo waa number of cycles divided by total time taa laftirkeeda waad heli kartaa laakiin waxay kugu kalifisaa inaad cycladan tiriso oo aad timekana u qaybiso cyclada intaad tiriso inaad timekana u qaybiso marka waxay yeela 2 waa 2 cycle iyo rubuc intan waa quarter of a cycle marka waxay noqonaysaa 2.25 kaas aad u qaybinaysaa total timeka lagu qaatay oo 0.9 dabcan 0.4 kaas baad heli doontaa haddii ilaah raxmaankiisa inagu simo su-aasha saddexaad waa frequency-ga frequency-guna dee periodkaad heshay unbaad hal u qaybinaysaa waa 1 divided by period frequency-gaagu marka frequency-gu waa 1 divided by periodkaagina waa 0.4 second marka isagana marka aad ku bedelato 1 divided by 0.4 buu noqonayaa oo ah 2.5 hertz su-aasha saddexaad oo ah angular frequency iyaduna waa omega 2 by f bay noo leegeed marka waxaan leenahay angular frequency-gii oo omega waa 2 by f iyadana markaan frequency-ga ku bedelno 2.5 iyadna waxay noo leegaanaysaa 2 bydiina waa 3.14 f-tiina waa 2.5 oo inagan haysanaa intaa marka la isku dhuftanaa waxaynu helaynaa 15.7 radians per second omega wax kastoo ay tahay waxaad ku cabiraysaa radian per second ama angular frequency ha ahaato ama angular velocity ha ahaato marka qaacidada aad adeegsanaysaa marka omega ay xiriir la leedahay frequency-gana waa angular frequency unbaa la odhanayaa marka ay xiriir la leedahay period-kana waa angular velocity okay tusaalaha saddexaad waxaa lagu yidhi the period of simple harmonic motion is 16 second periodkii baa layna siiyey find the angular frequency of the oscillation waxaad soo saartaa angular frequency okay laba mid bood yeeli kartaa angular frequency-ga horta waxaa muhiim ah inaad frequency-ga iyo angular frequency-ga xidhiir ka dhexaysiiso marka waxaa fiican horta inaad hesho frequency-ga mar haddaad periodka haysato marka waxaan leenahay marka hore waxaynu haysanaa period angular velocity inkastoo ay fiican tahay inaan relation ku sameyno ama aan xidhiidhino frequency-ga haddana isku number bay soo baxayaan had iyo jeer angular velocity iyo angular frequency isku qiimuun bay soo baxaan marka angular velocity baad raadinaysaa waa 2 by divided by period markaad ku bedelasho waa 2 times bydii oo loo qaybiyey periodka oo ah period kalenisi waa kan oo 16 second saa waxay noogu soo baxaya 0.393 radian per second okay su-aasha afraad waxaa lagu yidhi horizontal spring u yaalla qaab horizontal ah ayay keeduna tahay 300 newton per meter oo dabcan de waa constankii maaskuna waa 0.75 kilogram waxaa lagu xidhay attached to it is undergoing simple harmonic motion springka maaska lagu xidhay ayaa waxaa ku dhacay simple harmonic motion dibadna waxaa lanaga doonaya periodkiisa iyo frequency-giisa iyo angular frequency-giisa maanta waxaynu haysanaa keedii iyo maaskii den markaan gifanka qoranno periodkii waxaanu leenahay horta waxaan ku helinaa 2 by square root m divided by k mar haddaad m iyo k haysato horta qaacidadan aad isticmaalsa marka m-na waad haysanaayo waa 0.75 kilogram k-na waan haysanaa 300 newton per meter marka ku bedelo m iyo k qiimayaasha aynu haysano markaynu labadooda mt-na ku bedelno 0.75 kg keedina aan ku bedelno 300 labada gudaha ayaynu isu qaybinaynaa labada gudaha markaan isku qaybina ruudka ka saarnaan 2 bay ku dhufana shaqada dheer aynu soo gaabsano waxay inoo soo baxaya 0.314 second kaasi waa periodki frequency-guna ama qaacidada isticmaal ama kala rog labaduba way ku furan tahay haddaad tiraahdo frequency-gu waa 1/2 by square root k divided by m way ku furan tahay haddaad tiraahdo frequency-gu waa 1 divided by period-na way ku furan tahay marka b-da frequency-ga waa 1 divided by period baynu odhanaa ta fudud baa la iska qaataa hadiyo jeeraale marka waa 1 divided by intaa uu periodku inoo soo baxay markaad waxaal u qaybisa marka waxaa kusoo bixi 3.18 hertz su-aasha c-da angular frequency baa laynooga baahan yahay marka maxaynu leenahay angular frequency waa 2 by f iyadoo qaacidada maguurtaa bay leedahay
marka halkaa waxay nooga soo baxaya mar haddii angular frequency ay noo laagtahay 2 by f dee f tina waynu haysanaa marka halka f taalana waxaan ku bedelanaa qiimaha halka bydu ay taalna 3.14 marka angular frequency wuxuu noo soo baxayaa 2 times 3.14 times 3.18 marka inta aynu isku dhufano waa 19.9 radian per second mar kasta waan ku celinayna waxaad maanka ku haysaa waa isku mid angular frequency iyo angular velocity marka uu related leeyahay frequency-ga unbaa laydhaa unbaa omega laydhaa waa angular frequency marka ay periodka la xidhiidhana waa angular velocity laakiin isku qiimana way soo baxayaan isku halbeegna wey okay gabagabadii su-aashaas ayaad insha allahu tacaala isku soo dayeysaa su-aashaasi ta u dambeysa ayuunbaad moodaa in xidhiidh la leedahay oo spring constankiina waad haysataa maasna waad haysataa marka waxaa lagaa doonayaa periodka iyo frequency-ga marka labada formulada periodkaad isticmaali aduu su-aasha insha allahu tacaala ayaad isku dayi doontaa qaybta casharkaasina halkaa inoogu joogto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu